bismillah. Maanta cashirkeena labaad ayaynu qaadan doonaa. Waxaan ugu dambeeyay talooyinkii grammarka aynu ka soo qaadanay naxwaha wuxuu yahay introduction-kiisa si aynu horta u fahanno basically understanding grammar si aan u fahanno muxuu grammarka yahay si aynu u fahamno waynu soo aragnay. Sidoo kale advice talooyin badan baa soo aragtay. Maanta waxaynu qaadan doonaa maxaa la yiraahdaa sentences, jumladahu maxay yihiin ayaynu maanta qaadan doonaa. halkan ayuuna cashirkeena maanta uu ka bilaaban doonaa, waana chapterka koowaad ee buugga. A sentence jumlad ama jumlada a sentence jumlada is a set of words waa kooxo eraya ah ama eraya isku xiran that kuwaasoo are put together si wada jir ahi laysugu xiro ama si wada jir ahi meel qura ku wada jira to mean si ay u micneeyaan something walax. A sentence jumlada is the basic waa asaaska unit ee qayb ka mid ah of a language luqadda which kaasoo expresses qeexaya a complete thought fikrad dhammaystiran. waynu garanaynaa jumladaha haddii aad horey usoo aragtay dadka naxwaha bilowga uu yahay I think inay horey usoo arkeen sentences jumladaha inay horey usoo arkeen ayaan u maleynayaa. Marka waa qayb ka mid ah waxay qeexaysaa complete thought fikrad dhammaystiran ayay qeexaysaa. Idaas waxay sameynaysaa marka this tani ayay sameynaysaa by flowing ay soo socota grammatical ayay u sameynaysaa iyadoo raacaysa basic rules xeerarka asaasiyaadka of syntax ee naxwaha ayadoo raacaysa. For example tusaale Alice walking Ali ninka la yiraahdo wuu soconayaa that expresses a complete thought waxay sharaxaysaa micno ayay sharaxaysaa oo fikrad ayay sharaxaysaa. Ali is walking wuu soconayaa Ali waa complete sentence waa hadal toosan. A complete sentence marka has waxay leedahay at least ugu yaraan a subject sameeye a subject sameeye and a main verb. The main verb ka waxa waaye what the doer is doing qofka sameeyaha wuxuu sameynayo ayaa ah the main verb ka. sidaas darteed waxay noqonaysaa complete thought ayay noqonaysaa. Short example waxa kamid ah she walks way socotaa oo ah ficil maalin kasta dhacayo oo way socotaa iyada joogtay u socotaa. kii hadaayad muxuu ahaa Ali is walking Ali wuu soconayaa. marka waxa la isticmaal waa qasab inaad hesho subject plus main verb. haddii ay israacaan subject plus main verb waa sentence. hadalkaas si fiican u dhageyso. subjectigi sameeyihii plus haddii lagu daro main verb haddii lagu daro wuxuu noqonayaa sentence ayuu noqonayaa jumlad ayuu noqonayaa. A subject sameeya is the noun waa magac marmarka qaarkii waa magac. tusaale sidaad hadda ka arkaysid Ali is a noun waa magac waa proper noun waa magac qaas ah. she maxay tahay she waa pronoun. subject noun waxa la yiraahdaa subject pronoun ayaa jira. pronoun iskana waynu arki doonaa tixanaha cashirka intuu socdo cashiradeena naxwaha. A subject marka is the noun waa magaca daadkaasoo is doing sameynaya the main verb ficilka wixii la sameynayay yani he's playing wuu ciyaaraya maxaa la sheegayaa the playing is the main verb. playing is the main verb why he maxay tahay pronoun. haddii aan ku dhaho Abdi is playing haddii aan ku dhaho Abdi wuu ciyaaraya Abdi means the subject of the noun why waa sameeyaha magaca sameeyaha wixii la sameynayay maxaa waaye playing ciyaar why. falka haduu muxuu noqonayaa marka meeshii ku dhacay receiver of the action muxuu noqonayaa he is playing a football kubad ayuu ciyaaraya. football waxa marka the receiver of the action why. marka the main verb is the verb waa ficilka daadkaasoo the subject is doing sameeyaha uu sameynayo. qaybtan si fiican u dhageyso. si fiican u dhageyso. tusaalahan ka soo bilaabaya example tusaale sidaad ka arkaysid halkan tusaalaha example-ka she walks way socotaa. she walks sheeda iska daa waxaad isticmaashaa Aasha walks Aasha way socotaa. imika Aasha muxuu noqonayaa Aasha wuxuu noqonayaa the subject of the noun ayuu noqonayaa
sameeyihii magaca sameeyihii maxaa lagu leeyahay that is taasi waxay tahay is doing kii sameynayay the main verb ka muxuu yahay marka walks the main verb is the verb waa ficilka that kaasi the subject sameeyaha is doing uu sameynaya walks waa the main verb marka taas darteed waxay ku noqonaysaa markaasna sentence ayay ku noqonaysaa